بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan asxaabta ku xidhan facebookkayga iyo youtube-kayga insha allah waan soo dhaweynaya waxaan videogana soo duubaya insha allah inaan maaragtay ka faa'iidaan waxyaaba badan waayo wiigan ugu dambeeya kale kun iyo something baa soo codsaday in maaragtay mar lagu wada jawaabaana way yara adag tahay iskaga dulqaata insha allah intii maaragtay markaa aan maxay uga soo jawaabin su-aalahoodii dad badan oo maaragtay maxay ahaydaan maanay fahansanayn macnii waxaan barnaamijkan iyo maaragtay facebookkayga maaragtay aan uga dhaadhacsanay waxaan ka wada marka waxaan doonayaa in muhiimaddu aan maaragtay idin yara iftiimiyo ilaa iyo hadda waad aragtaa inay soo dhowdaa soo hayaan marka inaan idin iftiimiyo programkan iyo maaragtay waxyaabahan aragtaan aad la sheer garanaya inuu tahay mission for nutrition hadafkaygu yahay missionkayga iyo u yahay maaragtay waxyaabaha dabiiciga halkaa markaan uga sii gudno mission for nutrition muxuu mission for nutrition yahay mission for nutrition wuxuu yahay inuu qofku ku noolaado caafimaad ama active lifestyle isagoo maaragtay markaa qofku uu maaragtay sameynayo inuu maaragtay ku noolaado waxyaabaha dabiiciga ah isagoo maaragtay caafimaadkiisa saxaya isagoo maaragtay jirkiisa qaab ahaaneed ama maaragtay jirkiisa dhisaya hadduu dhalinyaro yahay iyo hadduu qof kale yahay waxaa kaloo maaragtay tahay inuu maaragtay hadafka markaa ka leeyahay maaragtay inuu maaragtay miisaanka dhimo oo kala inuu miisaanka kordhiyo oo kala inuu maaragtay sameeyo oo kala maxay ahaaday maaragtay inuu qofka isagoo si dabciyan cuntadiisii maalintiisii ku bilaabanayo cunto wanaagsan isagoo energy iyo maaragtay iyo waxyaabaha iyo daalka badan ka raysanaya isagoo markaa cunto markaan isu dheelitiran cunaya marka taasoo kaliya ta maaha inuu productiga maaragtay dadka maaragtay uga faa'iideynayna annagoo ah ma coaching free siinayna coachingkaasoo ah inuu qofku maaragtay annagoo coachingka barayna markaa coaching ahaan barayna coach ahaan annagoo barayna markaa dadka inay maaragtay siino oo kala cuntooyinka barno cuntadaasoo noqonaysa in qofku marka cuntooyinka wanaagsan ee jirkiisa u baahan yahay nutritionka iyo cuntooyinkan jirkiisa u baahnayn marka inaan xal u helno waxyaabaha badan ee maaragtay hadda uu adduunka kusii shaqayo maaragtay dadku inay maaragtay aada u sii soconayaan inay maaragtay markaa ay maxay ahday sameeyaan oo kala dadka inay fats overweight noqdaan inay dadka maaragtay oo kala maaragtay maxay ahday markaa mission for nutritionkaas wuxuu xambaarsan yahay maaragtay dadka aan xal u helno halkaasoo ah maaragtay inaan maaragtay halelista maaragtay dadka maaragtay kusii shaqayaan inuu minus victim noqdo ama miisaankiisa hoos u dhaco oo kala sababaha keenaya oo kala marka wax kasta oo aad marka aad waxaad tahayna waxaad cunto baa tahay sababta muhiimadda ay tahayna waxa weeye inuu qofku maaragtay cunto wanaagsan oo nafaqaysan oo wuxuu jirkiisa u baahnaa heliyo maaha inuu cunto walba markuu gaajoodo wuxuu doono qofku iska cunayo inuu wax caafimaad la cuno taasay muhiimaddu tahay annagoo markaa farta ugu fiiqayna wixii nutrition coaching ahaana ku siinayna annagoo markaa maaragtay ka caawinayna siduu xal ugu heli lahaa maxay ahaday marxaladaha iyo carqaladaha haysta marka taasay tahay faa'iidooyinkaygu annagoo qofka maysad ahaan iyo niyad ahaan maaragtay u dhisayna oo dhiirigelinayna annagoo maaragtay siinayna waxyaabihii uu jirkiisa u baahnaa taasay muhiimaddu tahay foxku inuu qof walba noolaan lahaa isagoo waxyaaba dabiiciya cunaya inaan qofka barno wixii waxaan ku keenayay inuu overweight noqdo ama miisaankiisu saayido hadduu marka qofku miisaankiisu saayido miisaankiisu halkii loogu talagalay dhaafana maxay ahday inuunu miisaan lafiisu qaadi karayaan maxay ahday aanay noqonin marka waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha loo baahan yahay inuu qofku maaragtay aanu ka caawino marka qofku waxaa loo baahan yahay muhiimaddu inuu maaragtay waxaan maaragtay markaa iyo missionkan iyo nutritionkan iyo waxyaabahan la sheergaraynay dad badan fahansanayn oo maaragtay marka ay kugu soo darsadaan oo kaliya taa inuu qofka maaragtay musculka dhisay ama murqaha waaweyn ama waxyaabaha inay interest garaynayaan laakiin muhiimaddeedu waxay tahay inaan maaragtay wixii aan idin maaragtay bayaamino oo idin cadayno inay tahay maxay ahaday inuu qofku maaragtay bedeli karo maxay ahaday dad badan oo u caal waayey ama ka qoostay inay maaragtay fatska iyo dhimaan taasay muhiimaddu tahay marka haddaba waxaan support siinaa 100 iyo something wadan dadka wadamada maaragtay aan maaragtay ka caawino oo maaragtay company-gu joogo inaan support ka siino marka insha Allah qof kasto marka u baahan inaan ka caawino sida maaragtay u kala horeeyaan oo kala inaan qofka siino inaan support ku siino
waddanku joogo iyo maaragtay telephone numberkiisa oo kale inuu maaragtay qofku insha Allah messengerka igu soo diro si aan maaragtay uga caawino wuxuu u baahan yahay marka insha Allah maaragtay caafimaad ahaan iyo nutrition ahaan si waxa lagu helaa marka waxyaabaha haysta kabacdi marka insha Allah qofkaan la soo xiriirayo dabeedna maaragtay ku caawin doono insha Allah online ahaan anigoo support siinayna waliba coaching free marka waxaan jecelahay inaan idii bayaamiyay muhiimadda ay tahay inaan maaragtay qofku helo active iyo firfircooni badan marka isagoo marka sameynaya inuu marka sameeyo inuu maaragtay xalkiisii marka hadduu maaragtay caafimaad ahaan xal ay haysteen marka caafimaad ahaan leeyana waxaan uga jeedaa marka qofku maaragtay uu xal waayo inuu maaragtay miisaankiisa dhimo markuu xal waayo inuu maaragtay quraacdiisa saxo waayo waxay ka mid tahay inuu qofku quraacdiisa saxo maalintii oo dhan wuxuu ku bilaabayaa muhiimadda tahay waa quraacda hadduuna qofku quraac saxa oo wanaagsan oo maaragtay balance aanu ku bilaabinna caafimaadkiisa wuxuu ku jiraa qayqayr buu ku jiraa taa way muhiimadiisu waxaa jira dad badan oo inaga mid ah oo quraacda jira oo maaragtay ka taga cuntada subaxii oo kale taasna waxay keentaa waxyaabaha keena maaragtay in maaragtay qofku macaan qaado inuu xanuuno badan ay ku yimaadaan inuu gastric ku yimaado waxyaabahaas oo dhan baa qofka ku yimaado marka waxaan sameynaynaa nutrition ahaan waa inaan ka hortagnaa intaanu qofku waxyaabaha soo asiibin marka muhiimadda taas ay daaran tahay dhammaan inta maaragtay ku xidhan maxay ahayd YouTube-kayga inta maaragtay Facebook ku xidhan soosa page-ka Facebook ku leeyahay soosa inta ku xidhan maaragtay maxay ahayd inta ku xidhan maaragtay Facebook-kayga caadiga Snapchat-kayga Instagram-kayga social media oo dhan isticmaalo inta ku xidhan insha Allah waa idin la share garan doonaa inta uu ka buuxsamay maaragtay Facebook ama maaragtay ka buuxsamay insha Allah inay social media ay kala maaragtay kala xiriiraan YouTube-ka oo kala community-ga waad iga soo gudbin kartaan wixii fariimo ah ku soo qori kartaan insha Allah hoosta marka waxaan jecelahay intiina maaragtay Facebook igu jirtaa waa insha Allah share iyo like iyo subscribe saartaan sida uga faa'iidaan waxyaabo badan maaragtay halkan ku soo gudbin insha Allah caafimaad ahaan dhammaantiina waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu